hadda khadka waxaa si toosa ugu jira wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Somaliland mudane Saciid Surub sacaad wasiir ku soo dhawow waraysigan gaarka telefishinka Hon Cable waxaad ka mid tahay guddiga Somaliland u matalaya wada hadalka halkee bay wax marayaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايش احمد وحوي ذلك بالكلاة قدي قدي ها قدي فرسمو اما تكنيشنسكا صدح عشان وحودني صدح عشان وحودنينا هاو لحق ضبا هي ها جنبه وحكت عوي قدي دي مع صوماليا واي guddigaas oo u muuqatay inaanay guddi mandate haysata ahayn ee guddi iska sheekeynaysa wax kalsooniyana nafteeda ku qabin marka annaga mandate ilaanu haysanaanu goobta la fadhinay wixii qodobo la soo qaadaba inaanu ka gaari karno go'aan ayagu wax walba waxayna lahaayeen ma ogin war ma hayno aan la tashano wasiirka ku shaqaalaha ama madaxweynaha ama waxaan kaasa niman aad u prepared ahayn oo soo diyaar garoobay bay ahaayeen qodobooyinkii laga wada hadlayay ahaa maalinkan maanta heshiisyadii labada madaxweyne go'aamiyeen iyo dhexdhexaadka madaxweynayaasha dhexdhexaadka ay go'aamiyeen heshiisyadii hore in la fuliyo ayay aada uga warwareegeen ay ka mid tahay inaan la siyaasadayn mucaawanadii bay siyaasadeynayaan oo ay ku xirayaan inay dee innaka ayaga aynu maro oo aanaynu inaku dawlad ahayn wax fara badan oo caynkaasay sameeyeen marka adigu maanta finally caawa horeysay lixdii oo rubcda ayaa markii ay diideen arrimihii o dhan warwareeg ka dhigeen ayaanu ku nagay jeerkii Ethiopia jeerkii Djibouti wasiirka khaarijiga Djibouti nimankan diyaar ma aha mar haddaan diyaar hayna hadalkii marka intaas ku ekaanaya waxay soo diyaargarooban baan sugeeman sidaasaan shirkii kaga baxnay oo aan kaga tagnay waxyaabo kale oo غير macquul ah oo odhanaya labada shacab iyo labada dad aan isu furro ayay soo jeediyeen taana waxaan ku nidhi ninka siyaasiyiinta iyo dadkan shacabka caadiga walba oo isu socdaay siyaasiyiinta iyo dadka Soomaaliland ka soo horjeeda dowladda heshiinayna ka heshiin isma furayno waxba isma furayno marka adigu hawsha halkaas ay maraysaa sacaad wasiir waxa wararku ay sheegayaan in la isku mari waayay in Soomaaliya ay ogolaatay in wax laga qabto arrimaha mucaawinooyinka oo ay taa ogolaadeen idinkuna aad diidan tihiin arrimihii dhaxgalka arrinta maxaa ka jira waxa ka jira mucaawinadana may ogolaan waxaanu ku nidhi mucaawinada way naga dhaxaysaa aynu goobjoog ka noqono wixii layna siinayo goobjoog ka noqon maysaana annaka loo dhiibaya waxaan idin garanana waa wasaaradda maaliyadda nagala xidhiidhaya baa yidhi marka annaka waxba idinla xidhiidhi mayno idinka oo waxba idinka sugi mayno ku nidhayo donaliskaynu wada tegaynaa ayagaa diiday tan isdhexgalkana waxaan ku nidhi dee laba dal oo col aan weli heshiinin isma dhexgalaane horta aan heshiino oo aynu qodobadan iyo waxyaaba fara badan oo hor yaalla markaynu ka heshiino ayaa la isdhexgeli isdhexgalka dadka caadigiina wuu socdaa oo aad waad ka warhaysaa wariye ahaan ee isdhexgalka siyaasiyiinta iyo dadka khalkhadgelinaya Somaliland iyo dadka xilalka haya ee sheeganaya inay xukumaan Hargeysa annaga Hargeysa noogu iman maayaan baan ku nidhi marka ma sidaas u doonayaan isdhexgal siyaasadeed in la sameeyo mise waxay ka hadlayaan arrimaha kale ijtimaaciga ma toos bay u yidhaahdeen wasiirada xilka haya iyo xildhibaanadu hay yimaadeen markii aan diidnay taana waxay yidhaahdeen qolooyinka sportska iyo qolada culturalka iyo qolooyin kale dabeedna waxaan ku nidhi wixii aan nabadgelyadayada iyo siyaasadayada faragelinayn ee imanaya dadka caadiga ah ee society-ga ama mujtamaca wixii imanaya iminkaba waa yimaadaan iyo baamushtarigu taa hadal kama taagna waa tahay wasiir ma jiraan qodobo aad aqbasheen oo la isla fahmay labada dhinacba oo iyaguna ay aqbaleen idinkuna aad aqbasheen ma jiraan waxaanu markii hore aqbalnay matalan mucaawanadoo kale isla aqbalnay mucaawanadoo kale inaan la siyaasadayn laakiin markaan detail u galnay siyaasad bay ka dhigeen waxaan annakana soo marin idiin iman maayaan bay nidhi waayahay marka qodob kale oo la isla fahmay haba yaraatee ma jira miyaa la odhan karaa qodob allahuma salli cala sayidina maxamed qodob waxaan kuu sheego oo nimankaas wax walba way ka galgasheen
wax walba waxay yidhaahdeen matalan nabadgelyada iyo kala qaybqaybinta somaliland kala qaybinayaan iyo dhaqaalaha ay gelinayaan iyo dagaalada xidida ka wadaan waxaasaanu ka hadalnay maba ogin bay yidhaaheen nimankii loo soo diray wasiirada ahaa naloo soo diray waxaa maba ogin yani dawladdeedu waxay wadaba nimaan ka warhayn bay noqdeen iswaraysta baana ku nidhi markaa imika yaa idinku dhex jira dhinacyada waxaa la sheegaya in jabuuti ay isu jiidayso maxaa halkee looga dhaqaaqayaa ismariwaagan kolley madaxweynaha jabuuti wuxuu ku taliyey in wixii qodobada wixii la isla gartayna communique laga soo daayo shir dambana la qabto wakti dambe oo ilaa 2-3 hooyo dambe la isu yimaado laakiin wax weli final ma aha marka miyay u muuqataa shirkaasi inuu burburay oo aad kala tegaysaan mise waa isku noqonaysaan wuxuu u badan yahay inaan isagu kala tegayno maxaa yeelay 3 cashe ee aan qoladaa wada joognay qola aan diyaar ahayn oo aan serious ahayn bay noolan muuqatay oo iska jecel oo sheegashada somaliland inay sheegtaan oo aan la gudagelin arrimaha inaga dhexeeya aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee somaliland Siciid Sulub Maxamed